marka hore maadinaynaa nasiin nimcooyin badan kuwa noo muuqanaya iyo kuwa naga qarsoon intaba wa inta cudu nicmatallahi la tuhsuha inta kadib waxaan mahadcelinayaa maamul macallimiin arday waalidiin intaba dugsiyada faca weyn miisaanka culus kule dalkeena Soomaaliya Banaadir Zone inta meesha fadhisa oo mas'uuliyiinta kala duwan ah iyo sheekhayga qiimaha badan Sheekh Cabdixayi oo nu bixiyo anigu sheekha ummadda gudoomiyaha golaha buwaanada macallin Kobac madaxda dugsiga madaxda jaamacadaha gudoomiyaha midowga dugsiyada iyo guud ahaan inta kale indhaygu aysan qabanaynin ayaa iga mudan inay maanta kale meeshan soo istaagaan oo hadlaan kaliya ardayda reer Banaadir Zone oo saaxiibo dhownahay daabuurkan aan ku soo booqan jiray walow iskoolka aan la gaarayn oo faracyo badan yahay aniguna si gaar ah faraca Sinai aan saaxiib la ahaa Ustaad Malaas oo hadda laga sheekeynayo waxtarkiisa aan markaas tagi jiray haddana waligay waa jeclaa dugsiyadan inaan booqdo guud ahaan xarumaha ay ku leeyihiin ama faracyada ay ku leeyihiin gobolka Banaadir mana la kala gaari karo runtii marka inta ka soo gudbo hambaliyada ardadaas oo maantay kaliya munaasabadu ay tahay in loo hambaliyo loona duceeyo waxaan rabaa jaamacadaha xafladaha lagu casuumo jaamacaduhu markay tagaan munaasabadahan oo kale ardada way shukaansadaan way xitaan waxay dhahaan soo gala jaamacadeena soo gala meel hebel waxbarashada sii wata annagu laakiin waa ka duwanna annagu ardada waa shukaansanaa waanu xidxudanaa waxaan ku dhiirigelinaa guurka inay guursadaan maadaama jaamacaduhu maadaama in wax la bartana ay muhiim tahay in la guursadana waa muhiim maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam dardaaranadii uu naga tagay waxa kamid ahaa yaa macshar shabaab man istadaa'a minkum alba'ata falyatazawwaj cidii awooda dhalinyaro ay ha guursato ilaahi subhanahu wa ta'ala oo razaaq ah oo fitaaha intaan haysano faqri ka cabsamayno marka ardayda reer Banaadir Zone waxaan rajaynayaa waxbarashada iyo guurkana waa la isku wadi karaa qofkii waxa waaye maskaxdiisa adeegsada oo muruqiisa maale in waxbarashadana la wado guurkana aan la moogaanin oo aad noqotaan adiga iyo lamaantaadu inaad jaamacadihii u kala hadaan waxbarashadii xitaa waxyaabaha yaab kale waxa kamid ah intii aan waxbaranayn dugsiyada hoose dhexe sare waxaan arki jirnay arday iskoolka nala dhiganaysa waxbaranaysa oo aan heerkan ka soo gudbin wali oo haddana reero leh meesha annagoo iska bulaan sariirtii ka walwalayno cabsida badnayd sariirtii kaliga aan ku lahayn inaan jafjafanno gooyaashii wasaqda badnaa iska buladii dhibka badnayd annagoo ka walwalayna ayaa garbaheena waxa fadhi jiray dad lamaana ah oo waxna baranaya runtii aadna dhiirigelin noogu ahaa marka waxbarashada yeysan caqabad ku noqonin guurka ciddii isku wadi karta oo tabartaas leh hala guursato waxna ha barato maxaa yeelay guurka faa'iido badan laga helaa aqoonta kugu kordhaysa maskaxda kugu dagaysa ilaahay aad ku raali gelinaysa marka hal barto waxa la barto hana la guursado inta markaan ka tago dugsiyada Banaadir Zone tayadooda iyo qiimaha ay leeyihiin ayaan eray suugaaneed yar oo hidii la dhaho ku cabiri doona insha Allah laakiin waxaan ka hormarinayaa munaasabada maanta waxaan la fadhiistay jaamacadeydii oo meelo badan aan wada joognay laakiin maanta go'aansaday inaan sheego waxtarka jaamacadeyda isma ogeyn xayisiinayga ma ana waxaan ka soo baxay jaamacadda Muqdisho markii aan dooranayay ma ogeyn jaamacadda Muqdisho qiimaha ay leedahay laakiin markaan jaamacadda dhameeyay oo magaalada iyo suuqa aan soo galay ayaan dareemay waxtarka jaamacadda Muqdisho ay leedahay waxaan markaas u duceeyaa Dr. Ali Sheekh Ahmed Abu Bakar oo xilliga imtixaanaadka aan ku jirno inta noo yimaada nadhiir gali jiray dardaaranna nasi jiray waxaan ka xasuustaa dardaarankiisii ha noqonina dad maskaxdooda iyo muruqooda iyo maalkooda kaliya ka fakaree inaad wax tartaan mujtamaciina iyo dadkiina aad wax tartaan xooga saara oo dad iyo diin iyo dal isugaayee inaad wax qabataan oo hore u socotaan ku dadaala insha Allah ta'ala marka doctorka markasta dardaarankaas maskaxdeeda ku xooganaa waxyaabaha arkaysiin oo guriyo samo iyo meelaha la midka ay qabanayaan oo qiimaha badan oo arkaysiina wax iska yimid maaha dad diyaarsan oo la diyaariyay ayaa qabtay in alle intiina diyaarisay oo waalidiin leh oo macallimiin leh oo maxay hayto bulshada qaybaheeda kala duwan oo door ka geysatay diyaarinta mujtamacan Soomaaliyeed
ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkooda jannaha ka dhigo dembigoodana ha dhaafo suugaanta banaadir zone maadaama waqtigu kooban yahay dadkuna badan yihiin hadli doona hidiyaan ku cabiraa hidii hasideenina wadaadkan qamiiska wata oo koofida wata oo heesa maxay tahay heestuna sidii loo dhiga waayo markasta heestu wax xun ma dadka qaar waxay dhigi doonaan heesoo dhana xun heesuhu ma xuma laakiin qaabka loo adeegsado ayay ku xiran tahay musigan iyo niikadan iyo dadkan caariyaadka kale oo isla niikinaya iyo heesaha lugooyada ah oo dembiga iyo isku dirka iyo khiyaanada ka sheekaynayo ayaa xun maahana gudoomiyada golaha waanadana waa joogaahe heesoo dhan maaha waxa xun marka musiga iyo waxaas iyo niikadaas anaga aan dhibsanaa marka waxaan rabaa inay ila horisaan iskoolkaan ugu tala galay hidii waaye hidiyo iwada tayada dugsiyada tayada dugsigana iwada bulshadu way wada ogtee diyo iwada tayada dugsiyada waxaan ka wadaa banaadir zone dugsiyo kale ma haya iwada tayada dugsiyada tayada dugsigana iwada bulshadu way wada ogtee diyo hambalyaan u diri barayaashiisa bilan maamulayaashiisa mudan siday hawsha u wadaan diyo hambalyaan u diri barayaashiisa bilan way hor fadhiyaan maamulayaashiisa mudan ustaad malaasaan uga tusaale qaadanayaa saaxiib dhow aan nahay naxariis badan cid walba soo dhaweeya siday hawsha u wadaanna markhaatiyaan ka wada nahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.